Chelsea waxay ciyaaraysaa kulankii afraad ee London Derby. saddex natiijo kala duwan ayay ka heshay so far kooxaha London. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibaan ka soo aqrisay waa Fulham waxay soo dhaweey doontaa Chelsea. Chelsea waxay ciyaaraysaa kulankii afraad ee London Derby. saddex natiijo kala duwan ayay ka heshay so far kooxaha London markii la ciyaartay kooxda Chelsea waxay u baxday West Ham ayay guul ka heshay. Tottenham draw ayay ka qaadatay. Arsenal waxaan kala kulanay guul daro. Chelsea kulankan wuxuu u baahan yihiin in ay badiyaan haddii kaleeto top 4 iyo rajadiisa way dhamaatay. magacaygu waa Cabdulcaagane jaraka daawanaysid waa Caagane Channel. haddaad igu cusub tahay soo dhawaaw subscribe ku noo saar. aad iyo aad u mahadsan tahay haddii aad horey la joogtay oo ku mahadsantaa la socodkaada. kusoo dhawaada muuqaalka waxaan kusoo qaadan doonaa shirkii jaraa'idka macalinka yaa ciyaartooyda ka maqan Chelsea yaa dhaawac ku maqan iyo lineup-kaygii kadib iyo saadaalinteedii. waayahay aan ku bilaabno shirkii jaraa'idka macalinka wuxuu sheegay Frank Lampard in ay cidna ka maqneen Chelsea ciyaartooyda dhan ay u dhan yihiin. Janisna uu helay 2 toddobaad training fiican ay qaateen diyaarna u yihiin kulankan inay wada ciyaaraan ay ku soo laabtaan wadadii guusha. Chelsea markii loo fiiriyay kooxda Fulham kulan waxay ciyaartay aysan filanaynin kulankii Tottenham la ciyaartay waxayna ka qaateen 1 point. Fulham maalmahan koox waxay noqotay Scott Parker wuxuu noqday macallin ku xisaabtamo 1 point haddii uu away ku ciyaarayo ama haddii uu gurigiisa ku ciyaarayo. waxay noqotay Fulham markii hore iska bilaabanayay waxay iska ahayeen koox meel hoos ku jiro mar waliba dhibca laga qaato balse wuxuu helay aan dhigi karnaa lineup-kiisii ama shaxli ugu wanaagsaneed ayuu soo helay. Scott Parker waa nin dagaalamo waa nin dhaxda xirto waa nin la yaqaano sidoo kubadda u ciyaari jiray. Frank Lampard waa la hayaa tomorrow. Frank Lampard iyo Scott Parker waxay kala qabsadayaan halkan ku wadaagi doonaa hadday ciyaartaas soo dhamaato insha Allah. videogan video ku xiga ayaad daawan doontaa. sidoo macalinka Frank Lampard noo sheegay ciyaartooyda Chelsea dhan way joogaan cid ka maqan male marka laga reebo N'Golo Kante oo ku maqan 5 jaalle kadib markuu qaatay jaalihiisii shanaad kulankii Manchester City. FA Cup-ka wuu maqnaa dhaawac dartiid kulankaanne kamaso ma ka qayb qaadan karo waayo wuxuu ku maqan yahay 5 jaallo. ciyaartooyda kale ee Chelsea cid maqan male. Hakim Ziyech wuxuu helay daqiiqado ama wuxuu ciyaaray 60 daqiiqo ku dhawaad wuxuuna helay ciyaar ku filan. fitnesskiisa way soo laabtay waa 100%. Frank Lampard sidoo cadeeyay wuxuu yiri ciyaartan waxaan u helnay Janis inaan wado fiican ama lineup fiican ama wax waliba aan ka diyaarino kadibna kulankan soo socday ee Fulham diyaar ayaa u nahay inaan guul soo qaadano. kulankan aniga waxaan dhihi lahaa only waa inaan guul Chelsea soo heshaa haddii kale top 4 iyo tartanka horyaalka warkiisa waa ku daayay. waxa waaye wixii hadda ka dambeeyo si aad 1 dhibic ku heshid way aad iyo aad ayay u adag tahay. marka tomorrow waxaan rajaynaynaa inaan guul soo helno wax kale igama degaan only waa guul. kulankana waa kulan derby ah. Fulham iyo Chelsea waxaa u dhexeeya only train stationka wax kale u dhexeeya malahan waa xaafadtan iskaga soo horjeedaan haddii aad in degantahay oo kale xaafad shanaad waay. marka waa ku derbigii ugu adkaaba magaalada ama garoonka Chelsea meesha ku yaallo waxaa iska leh Fulham mar waliba Chelsea waxay ku dhacaysaa meeshan ayaa noo soo gurteen meeshan ayaa naga qabsateen garoonkan iyo magaaladan anaga iska lahayn. waayahay markan ku soo dhawaaw lineup-kaygii iyo sidaan jeclaan lahaa inaan tomorrow ay ku soo galaan ama Frank Lampard oo shaxdan doorto waayo kulankan waxaan u baahanahay 3 dhibcood wax kale haddii Chelsea 1 dhibic xataa hesho top 4 iyo iska daa top 6 xataa ma galayso saan aniga rajaynayo haddii aan tomorrow 3 dhibcood la soo helin. goalkeeper-ka waa Edouard Mendy waa number 1 obviously waa goalkeeper-ka sanadkan Chelsea number 1 u ah. garabka midiga sidoo Frank Lampard sheegay kooxdiisa ciyaaryahan ka maqan malahan 25 ciyaartooy ee loo diiwaan geliyay Premier League waa u diyaar. marka waxaan soo geliyay difaaca midig Reece James. difaaca dhexe waxaan keenay Thiago Silva maadaama uu nastay kulankii FA Cup-ka waxaan agsaajiyay Zuma. garabka bidixna waxaan soo celiyay Ben Chilwell. gadaashii dhan iyo goalkeeper-kii waa sidii Premier League ay ku ciyaarayeen kulankii Manchester City. dhaxda ayuu markaan wuxuu ka taagan yahay wareer waayo N'Golo Kante ayaa meesha ka maqan. Martinelli ayaa la keenaa. Guillemot ayaa ciyaaro. Kovacic miyaa soo galo. Kai Havertz maysamaan. Frank Lampard meesha ay wareer ka taagan tahay waa meeshaas. aniga ahaan waxaan jeclaan lahaa tomorrow inaan aragno
asigoo wada ciyaarayaan Kovacic, Kai Havertz, Mason Mount dhexdeeda tomorrow san ayaan saadaaliyey. afar ayaa soo haray garabka weerarka ama qaybta midig waxaan soo istaajiyey Captain America. qaybta kale waxaan istaajiyey Hakim Ziyech. afare waxaan soo geliyey Olivier Giroud oo u baahan proper striker kadib markii la codeeyay Chelsea fan ay u codeeyeen Giroud inuu yahay strikerkooda. adiga maxay kula tahay? aniga lineup-kan ayaa saadaaliyey, adigana lineup-ka aad jeclaan lahayd inaad tomorrow ku aragtid ila wadaag commentigaada. markaane saadaalintii waxaan ku saadaaliyey kulanka waa kulan iska adag, waa kulan London derby ah, waa kulan ciyaartoyda iyo macalinka iyo macalimiintaba ay isiyaqaanaan ama ay isgaranayaan. kulanka mar waliba markuu yahay derby ama kulan uu yahay xifaaltan ka dhexeeyo loo dagaalamayo weliba xilligan Premier League haddii la gaaro kulamada haddiiba Premier League 15 sano loo dhaafo koox waliba waxay ku xisaabtantaa 1 dhibic sida ku hesha. waan aragnay Fulham maalmihii u dambeeyey kooxaha waaweynka Liverpool 1 dhibic ka qaateen, Tottenham 1 dhibic, Leicester City way garaaceen, marka koox la dhayeysan karo maahan Fulham. tomorrow waxaan rajaynaa inay Chelsea ku badiso 2 gool iyo gool. adigana waxay kula tahay inta Chelsea ku badi karto insha Allah ila wadaag. waayahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. hayloogina subscribe iyo sartid like iyo comment insha Allah. dhiirigelin ayay tahay mar waliba waad ku maasan tahay la socodkaada iyo commentiga ay la wadaagaysid. laagtaadana waa ii dhiirigelin. aad iyo aad u maasantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.